waxaan u doorannay inaynu mowduucan ka hadallo iyadoo wakhtigan dambe ay badan tahay wax ka sheegga nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulalka reer galbeedka iyadoo marmarsiiya laga dhigtay xorriyat alqowl u aragnana inaanay wax saxa ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan u aragnaa inuu yahay acdamu shakhsiya fi taariikhi albashariya aadam intuu dhalay calayhi salaam ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu yahay acdam insaan dhulkan ku kor socda maqaayiis kasta oo lagu qiimeeyo marka aan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa acdam insaan qur'aanka iyo sunnadu way tilmaamayaan waxgaradka bini aadamkiina wuu tilmaamaya sidaa awgeed waxaan u arkayaa inay tahay dadka muslimiinta ah ee siiba yurub jooga inay ka mid tahay waxyaabaha looga fadhiyo inay nebigooda calayhi salaatu wasalaam difaacaan oo qaabka u roonay loo difaacayana ay ka mid tahay in weynidiisa la soo bandhigoo la muujiyo wakhtiga oo kooban daraaddeed waxaan isku dayayaa markaa inaan koobo dhan markaynu eegno koowaad diin ahaan bini aadamka hormoodkiisu waa rususha iyo nebiyada bini aadamka oo dhan marka la ysku daro dadka koowaad ee hormuudka u ahi waa dadkii rabbi doortay ilaahay wuxuu leeyay wakullan fadalnaa cala alcaalamiin intuu soo tiriyo 18 nebi oo qur-aanka fii suurati alancaam ku soo arooray marka 18 nebi ilaahay magac dhabo ayuu odhanaya wakullan fadalnaa cala alcaalamiin dhammaantood dunidan waannu ka doorannay baa ilahay leeya waa ka fadil yeelle waa ka kor yeelle ambiyadu waxay yihiin allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah baa ilaahay yidhi ilaahay isagaa og meesha uu risaaladiisa dhigayo cidda mudan allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay dadka wuxuu ka doortaa baa rabbi tilmaamayaa malaa'igtana rusul baa laga doortaa ergey loo dhiibo ilaahay subxaana wa tacaala risaaladiisa ama warkiisa si uu bini aadamka u gaadhsiiyo bini aadamkayna ilaahay rusul buu ka doortaa nebiyullaahi muxamedna ilaahay baa qur-aanka inoo tilmaamaya inuu yahay muxammadun rasuulullah alle rasuulkii inuu yahay sidaa daraaddeed ayuha alxibba risaaladu in ilaahay basharkao dhan intuu eego qof ka mida uu doorto oo uu doorto kuu la hadlaya inuu noqdo risaaladiisa u dhiibayo ee bini aadamka kala gaadhsiinaya laba wax bay wadatay dhan waa tashriif waa maamuus iyo qadarin tilmaamaysa qofkani bini aadamka kale inuu ka mudan yahay dhanna waa takliif waa xil iyo mas-uuliyad la saarayo idan rusushu labadaba waa wadayiin dhan waa mukallifiinoo takliif baa la saarayaa bini aadamkan inay gaadhsiiyaan risaaladii alle soo diray dhanna waa tashriif waa maamuus la maamuusayo ilaahay intuu khalqiga egay inuu iyaga ka dhex doortay waa maamuus waxa ugu filan nebi moxamed markaa maamuus calayhi salaatu wasalaam in ilaahay tilmaamayo mala'i laclaa inay isaga ku salliyaan ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima alle iyo malaa'igtiisu baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxay ku sallinayaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay salaadiisu waa naxariistiisii
malaa'igtuna waa duco iyo ammaan mu'miniintana waxaa la leeyahay idinna sidoo kale la kaalaya idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cirka saruu ka maamuusan yahi dhulka korkiisana wuu ka maamuusan yahi waana qofka ilaahay doortay ee u doortay inuu rasuul noqdo